wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland ayaa saaka kulan la qaatay maamulka macallimiinta iyo ardayda wax ka dhigata dugsiga sare ee maxamuud axmed cali ee magaalada Hargeysa waxaana kulankan wasiirka iyo maamulka dugsigaasi ay wada qaateen uu salka ku hayay kadib markii toddobaadkii dhawaa ay mudaharaad dhigan ardayda dugsiga sare ee maxamuud axmed cali kaasi oo ay kaga cabanayeen lacag lagu kordhiyay waliba qaar kamid ah macallimiinta dugsigaasi oo aan gunaysnayn oo dugsiga laga dhimay kulankan ay saaka isugu yimaadeen wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland iyo sidoo kale maamulka macallimiinta iyo ardayda dugsigaasi maxamuud axmed cali ee magaalada Hargeysa oo ka dhacay xarunta dugsigaasi ayaa ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay qaar kamid ah ardayda wax ka barata dugsigaasi waxaana wasiirka ay uga mahadnaqeen qoshadiisa ama kulankan uu saaka la qaatay sidoo kale waxay hoosta ka xariiqeen inay ka cabanayaan isla markaasina mudaharaadkii ay dhigeen salka ku hayay lacag dheeri ah oo wasaaradda waxbarashada ay ku kordhisay ardayda dugsigaasi iyo guud ahaanba ardayda dugsiyada sare ee Soomaaliland waxa sidoo kalena ay sheegeen inay arday ahaan diidaneen wixii sharciga isla markaasina ay ka soo horjeedaan wixii aan qabanin waxaana wasiirka ay baaq dheer ugu sheegeen inaanay marnaba u baahnayn in laga bedelo maamulaha dugsigaasi oo ay ku sifeeyeen inuu yahay haliyey qaran oo dhidibada u taagay dugsigaasi tan iyo intii maamulka ka ahaa isla markaasina soo saaray arday ka dhisan dhinaca aqoonta asluubta iyo tarbiyadaba waxaana wasiirka ay u soo jeediyeen inuu faraha ka laabto inuu maamulkaasi ka bedelo iskuulka isla markaasina macallimiinta ka tagtayna dib loogu soo celiyo sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga sare ee maxamuud axmed cali axmed waxaana wasiirka uga mahad celiyay kulankan la qaatay maamulaha dugsigaasi waxa hoosta ka xariiqay isla markaasina iska fogeeyeen aanu haba yaraatee sida ardaydu ay ka markhaati kaceen aanu wax luga ku lahayn mudaharaadkii dhawaantan ka dhacay ardayda dugsigiisa hase yeeshee uu mar walba diyaar u yahay sidii uu wanaajin lahaa wada shaqaynta ka dhaxaysa dugsiga uu maamulka ka yahay wasaaradda waxbarashada waxaana intii uu hadalka ku jiray maamulaha dugsigaasi uu hoosta ka calaamadiyey hadal dhawaan ka soo baxay wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland oo ahaa inaanay wasaaraddu u dulqaadan doonin maamulaha haysta in ka badan 25 sano oo markaasi uu la jeeday maamulaha dugsigaasi axmed cali balaya nibaadka laga sheegay maxamuud axmed cali ya dhibaataduna waxay ka dhacaysaa kunba nin sheegay waalidii ardayda fadhidaan 25 sano ninka joogay meel isaga iskuul kala mise dawladda mise iskuulkii yaalay isaga yeeshay kunba isku sheegay xaqiiqadan u tagayna ma suuroobaysa taas wax suuroobaya ma kurku hadduu naga go-ayo ma qaadan karno inuu 25 sano intuu dhex fadhiya haddana carruurta lagu soo diro maalin walba hase yeeshee waxa uu maamuluhu madasha uu wasiirku fadhiyay ka sheegay in uu wasiirku xilligii ahaa xogayaha golaha guurtida Soomaaliland isagu muddo ku siman 22 sano u soo ahaa xogayaha taasina aanay dembi ahayn isla markaasina qofku muddo dheer inuu joogo aanay dembi ahayn hase ahaatee ay dembi tahay buu yiri inaan waxba ka qaban halka uu joogo hadaladiisina waxaa ka mid ahaa maamulka ku sameyn waayo dambiga wasiir hawlo badan oo baa yaraada markaa shaqada kasoo jiro shaqada kasoo jiro lama tookana waa wada jeclaa dadkooda iyo ardayda shaqaalaha iyo wasaaraddu inta ugu jecel yihiin qaranka oo shaqeynaya إن شركة مبهرة لا تبدو معها وسيكنا سبحين وعطوصة مواد وحوغيان كنت معها والدرب واحد إنه سبحين وعطوصة مواد كنت وحوغيان قلب وحوغيان سواسا سيومنا الله يتفيدنا الله خير دنبي لكن واحد دنبي وانا ورغيه وانا كنت اسكول كله kan saaka ay wada qaateen wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland iyo maamulka iyo macallimiinta dugsiga sare ee maxamuud axmed cali ayaa waxa ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland Cabdullaahi Ibraahim Abane waxaana uu ka hadlay lacagaha ay ku soo kordhiyeen ardayda dugsiyada sare ee Soomaaliland iyo sababaha ay xilligan u soo kordhiyeen waxaana uu yiri macallin lacagta ay qaadan mayso wasaaradda waxbarashadu qaadan mayso maamulihiida ay nihaya isagaa jeega idin jaraya isagaa maamulaya laakiin waxaan ku soo kordhina waxa weeye halaga nidaamiyo oo haddaad si cantuugta waxba idin talinaysee maragooda qaataan ardaydana waxaan ka codsanaynaa
inay hore u keenaan. si kastaba haatee kulankan saaka wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Somaliland oo la qaatay maamulka macallimiinta iyo ardayda dugsiga sare ee maxamuud axmed cali ee magaalada Hargeysa ayaa gunaanadkii waxa uu ku soo dhamaaday jawi degan iyo mid farxadeed iyadoo wasiirkuna ardayda horteeda maamulaha dugsigaasi uga sheegay inuu intuu doono haysan karo maamulka dugsigaasi asahaatee loo baahan yahay inuu ku hago dariiqa saxda ah isla markaasna ka dheeraado wax kasta wax u dhimay wada xiriirka ka dhaxeeya dugsigiisa iyo wasaaradda waxbarashada. Cabdirasaaq Axmed, Kuranta Somaliland Space Channel, Hargeysa.